halkani waa BBC oo aad ka maqashaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaartana dhageysatay meel kastoo aad nagala socotaan waa galab sabti ah bisha Abriil tahay 13 sanadku waa 2019 saacada Afrikada barina waa 5tii galabnimo oo gow ah wararka aanu galabta idin haynana waxa ugu mudan magaalada Muqdisho oo lagu dilay niman motobajaaj wata iyadoo ayna rabshado ka dhasheen banaanbaxyo ka dhacay magaalada Muqdisho xaaladda Suudaan oo wali cakran iyo mudaharaadada oo halkoodii ka sii socda xaaladuna sidan ay ahayd taasoo iscaysilay kadib markay shacabku mudaharaadyada sii wateen ilaa imika waxaa socda mudaharaadyadii ka dhanka ahaa dawladda oo ay u arkaan militarigu inuu waxa weeyaan haba yaraatee wax isbedela aan wadin waxaa sidoo kale maqli doontaa waxaan ka hadlayaa maanta dhibka taksiilayaasha oo magaalada aan ka adeeganayno maanta nagu haysta ee taksi la'aanta ah waayo anaga meelo badan meelo dheer baan kala deganahay qorraxdana waa kuleel waxaan ku adeeganaa taksiyaasha waa magaalada Mandheero oo guud ahaan laga joojiyay gaadiidka dadweynaha ee tagaasida madaxweyne Trump oo sheegay inuu doonayo inuu mar kale la kulmo Kim Jong Un qofka hadalka sheegaysa waa Kim Jong Un magaalada Hargeysa oo caweysyada qaadiga lagu tunto oo ay ku soo badanayaan qodobadaas iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaalida gobolka iyo caalamka kaleba ciyaarihiina kamid yihiin ayaad kaga bogan doontaan saacadda inagu soo aadan barnaamijka waxa soo saartay Kawsar Maxamed Cabdilaahi anigoo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiila iyo Faadima Taxadar Yuusufna waanu idin la socodsiinaynaa ee akhyaaray galab wanaagsan intaanu qodobadaasi aan u gudbin haatan waxa ku soo dhawaataan wararkii waa kan Xasan Sheekh Umar wararkaasina la socodsiiyay mahadsanid Faadumo madaxii sirdoonka qaranka dalka Suudaan Saalax Cabdallah ayaa iscaasilay sida lagu sheegay war laga sii daayay warbaahinta dawladda General Abdi Fattah al-Burhan ayaa ka aqbalay iscaasilaadda General Cabdallah oo loo yaqaan Saalax Goosh dhinaca kale ururada ka soo horjeeda dawladda dalka Suudaan ayaa ku baaqaya in dadweynuhu ay isugu soo baxaan banaanka hore ee xarunta ciidamada oo ku taala magaalada Khartoum tira badan oo dad ah ayaa halkaasi hore u sii joogay waxaana ururada aqoon-yahanada ee dalkaasi ay sheegayaan dibadbaxyadu ay ka sii socon doonaan dalka oo dhan tan iyo inta ciidamada militarigu ay awoodda gacanta u gelinayaan dadka shacabka ah General Abdi Fattah Burhan ayaa loo dhaariyay in dalka uu hogaamiyo kadib markii General Awad ibn Auf oo xilka ka degay hal maalin kadib markii uu afgambiyay hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi Umar Hassan al-Bashir qamiistii aynu ka soo gudubnay dadweynaha ayaa soo dhaweeyay General Burhan laakiin wali saluug ay ka muujinayaan booliskuna waxa ay sheegeen in 16 qof ay dhinteen tan iyo maalintii Khamiistii madaxweyne Trump ayaa sheegay in wali uu doonayo in shir saddexaad uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un Mr. Kim ayaa waxa uu horay u sheegay in ay suurtagal tahay in shir uu dhaco oo kaliya haddii Mareykanku aanu ku adkaysan dalabka ah in meesha laga saaro barnaamijka hubka nukliyeerka ka hor inta aan laga qaadin cunaqabataynta baarlamaanka Yemen ayaa yeelanaya kulankii ugu horeeyay muddo 4 sano ah kulanka ayaa la qabanayaa xilli xaaladda amnigu ay murugsan tahay isla markaana dalka ay ka jiraan isku dhacyo u dhaxeeya dhinacyada isdiidan mas'uuliyiinta Malta ayaa sheegaya in midowga Yurub ay isku raaceen in la qaabilo muhaajiriin oo markab laga leeyahay dalka Jarmalka oo ka badbaadiyay xeebaha dalka Liibiya dawladda Malta ayaa sheegaysa in dadkaasi la geyn doono Malta laakiin aysan sii ogolaan doonin in ay halkaasi sii joogaan Hindiya ayaa xusaysa sanad guuradii 100aad oo ka soo wareegatay markii 100 qof ay dileen ciidamo Britain ah xilligaasi waxa uu ahaa waqtiyadii ugu xumaa ee Hindiya soo mara oo ah xilligii gumaysiga Britain wali raali gelin kama aysan bixin Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa waxa uu dhibanayaasha xasuusiyay xilligaasi wixii dhacay We observe today the solemn occasion waxaa maanta 100 jirsaday oo aan xuskeeda taaganahay xasuuqii xanuunka badnaa ee ka dhacay Jallianwala Bagh
oo uu geystay gumaystihii Ingiriiska waxaana sharaf iyo qadarin u hayaa shahiidiintii ku baxay dhacdadaasi. mas-uuliyiinta dalka Vietnam ayaa xiray nin horey uga mid ahaa mas-uuliyiin sarsare oo ka shaqaynayay telefishin dalkaasi ku yaala. ninkaasi oo walaalkii ka yar uu yahay ninka ugu taajirsan dalkaasi ayaa loo jeediyey eedo kala duwan. Faham Nahatfu ayaa waxaa loo jeediyey ayaa haatan wajahaya su'aalo la xiriira eedo musuqmaasuq oo loo jeediyey shirkadda uu leeyahay sanadkii la soo dhaafay. eedaha waxaa ka mid ah in uu shirkad isgaarsiin oo dowladdu ay leedahay oo u gudbiyey dalabyo sharci darro ah kuwaasi oo uu ku guuldaraystay. bishii February ayaa la xiray 2 wasiir oo horey uga soo shaqeeyay isgaarsiinta dalkaasi waxaana la sheegay xilligaasi inuu socday olole lagula dagaalamayay musuqmaasuqa. mas-uuliyiinta la dagaalanta musuqmaasuqa ee dalkaasi ayaa xiray 10 ganacsato iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo lagu eedeeyay dhammaantood laaluush iyo wax isdabamarin. warbaahinta dalka Suuriya ayaa sheegtay in Israa'iil ay weerar ku qaaday xarun military oo ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Maysaf. warkan ka soo baxay Suuriya ee ku aadan weerarka lagu qaaday xaruntaasi military Israa'iil kama aysan hadlin ilaa iyo hadda. 10 rag dumar iyo caruur isugu jira oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee dalka Pakistan ee Hazara ayaa dibadbax ka dhigay magaalada koonfurta ku taala ee Kuwait waxaana ay dadkaasi dalbanayaan in wax laga qabto xaaladda amni ee deegaanadaasi. barnaamijyada ayaa imaanaya saacado kadib markii ay dhinteen 20 qof kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qarax bam oo ka dhacay suuqa qudaarta oo ku yaala bartamaha magaalada Kuwait. dadka dhintay badankoodu waxa ay ka soo jeedaan qowmiyadda Hazara waxaana ay ugu baaqeen dowladda inay la timaado qorshe amni oo lagu ilaalinayo qowmiyaddaasi. maleeshiyad sunniyiin ah ayaa inta badan weeraro ku qaada bulshada Hazara oo shiica u badan. ugu dambeyntiina magaalada Kerkbellon oo ah magaalo ka tirsan ama magaalo yar oo ka tirsan dalka Jarmalka ayaa laga soo doortay xildhibaankii ugu da'da weynaa caalamka oo lagu soo doorto doorasho golayaasha hoose. haweeneyda xildhibaannimada loo soo doortay oo 100 sano jir ah waxay xilligii ololaheeda waday ay si weyn ugu ololeynaysay haddii la doorto in magaaladaasi horumar weyn ay markaasi ka samayn doonto waxayna ugu baaqday dadka in ay markaasi sugaan waxqabadkeeda. warkii caalamka oo aad kala socoteen BBC waa naga intaa. uu mahadsan yahay xasan sheekh cumar ee dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. aanu ku bilownay 2 askari oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya oo joogay bar control oo ku taala iska degmada Howlwadaag ayaa dil u geystay 2 wiil oo ahaa darawalada bajaajta ee ka xoogeysata magaalada Muqdisho. dilka 2 wiil ee bajaajleyda kadib ayaa waxaa durbadiba Muqdisho ka bilowday dibadbaxyo wata rabshado kuwaasi oo ay dhigayeen darawalo bajaajleyda iyaga oo na codsanaya laamaha ammaanka inay askarta dilka geysatay la soo qabto. dibadbaxyaashu sidan ayuu xaalkoodu ahaa goor sii horeysay maanta. haddaba xasan cabdulaahi oo kamid ah dhalinyarada ku shaqeysata bajaajleyda ayaa iiga waramay sababta ay dibadbaxyaashaasi rabshadaha wata ay maanta magaalada Muqdisho mato bajaajleydu ay uga sameeyeen. way qasantaa bajaajley baa la dilay marka waa banaanbax way sameynayaan dadkan way kacsan tahay ma garat marka yaa way cidda banaanbaxa sameynaysa waa bajaajleydi iyo shacabkii marka saas dadka loo sameynaya banaanbaxa dadka bajaajleyda xagee lagu dilay wallahi iskool waa dilay rabuunkana waa lagu dilay marka dilkan yaa geystay baa la leeyahay sida lagu sheegay waa ciidamada dilayna baa la yiri askari baa dilay ganacsiga xataa inta badan waa la xiray magaalada waa inta gaadiidka ma marayo wadooyinka banaanbaxyada shaqada dad baa yaacaya mootoley baa yaacaya magaalada maxaa diidaya inaad si nabada banaanbixina aad u samaysaan oo rabshadaha iyo waxaas aad u samaynaysaan banaanbax nabadeed inuu dhaco aad baan u jeclaa dadku way xariisiin hadda ka horena nin baa laga dilay ma fahamtay nin baa laga dilay hadda ka hore bajaajla ah marka haddana waa markii labaad arrintan dhowr jeer way soo noqotay marka 12 qofood baa laga maraya hadda bajaajlada inta laga dilay ma garan
marka maamulka arrintaas inuu ka hadlayo in kale wallahi maamulka wuu ka hadlay sida xataa ayaanan qadirin xitaa canshuurta 3 bilood waa laga joojiyey marka ma garanayo ciidanka weeye ciidanka waxay isku dhacayaan gaadiidna waa iska magac adeegyiino meeshii ka joogi yidhahda xataa ka joogi maayaan may wallahi anigu waa anigu inaan laabtaan jeclahay on amarka dowladda u maqlo maxaase dalbanaysaan idinka haatan waxaan dalbanaynaa in dilka xoogaa u xadlato yani loo sheego la wacyigeliyo digaajilada naftigooda ciidamada naftigiisa la wacyigeliyo la yidhaahdo dhaqanka saana si fiicana loola dhaqma dadka shacabka waa xamar weyne waa shaqaalaha waa dadka waa bakaara intaas weeye xasan cabdilaahi ayuu ahaa oo khadka muqdisho igu waramayay wuxuuna kamid yahay bajaajleyda muqdisho haddaba qaar kamid a dhegeystayaasheena ayaa qodobkaasi iyaguna fikradahooda cod ahaan nooga soo dhiibtay عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد عبد الرحمن وشوكم مقالة توقع وشالة aad baan idin salaamay dhamaan dhaqda BBC runtii sidaynu ka warqabno muddooyin ka dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay dilalka loo geysanayo wadayaasha tigta ama bajaajta ay geysanayeen ciidanka dowladda Soomaaliya runtii waa arrin laga xumaado oo laga mudugoodo in maalin walba ay soo noqonato falka noocaasiya taasina way yaraan lahayd haddii ma garanaysaay wax laga qaban lahaa oo loo qisaasi lahaa qofkii dilka geystay dhacdooyinkii ku horreeyey haddii la qisaasi lahaa laakiin waxa uu ku dhiiranayaa askarigu marka uu ku salkan ka sameeyey waxba laga qaban waayo waxay muujinaysaa taasi in cid kasta ama askari kastaba ay ku dhiirato inay aad yar naf muslima u disho oo dadka wadooyinka lagu laayo runtii waa mid u baahan in wax laga qabto فاطمة إبراهيم إسماعيل شوكتا مقالة هرقيسة مقالة مقدشة وهايد مقالة دكرية والنصيب درو دباتنا دبقى الشيء مروا الباع تذكر دمانيان دباتنا هرله أي كسر دلانيسو ولي بدلني يردي أي كود دمانيسو نك الشباب نوا دلني يرا وحلا يصير مريا نك دولة دنا ودلني يرا وحلا يصير مريا وحودك كود دمانيان ودلني يرا تاسل دقة وحوا dhibaatadaasoo dhanka aba xildhibaanadu inay dalka dajiyaan waayo wadan walba xildhibaanadiisa dajiya oo xilku dhiba marka iyaga laftarkoodii soo heesan baarlamaanka dhexdiisii dhulkii fawdo galo walaal ma nabadgelyo ay imanaysaa dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta oo magaalada Muqdisho ugu daran tahay oo intuu nin walba gobolkiisii dhistay oo xildhibaanna geystay oo dawladnimo iyo tariiq ka samaystay gobolkiisii ayaa magaaladii Muqdisho noqotay meel footballka lagu ciyaaro ilaahay ha u gargaaro assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي وفار عبد الحسين قرو جوغ مقالة قالكعيو runtii aad aan ku xumahay dhibka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo soo noqnoqday iyo dilalka loo geysto wadayaasha mooto bajaajka runtiina waa arrin aad u fool xun dilka loo geysto mooto bajaajka keliyana maahane dilalka waxaa loo geystaa dad badan oo muwaadiniin ah hadda sanadkan soo dhaafnay waa la ogyahay dad badan oo xitaa qaar goobaha waxbarashada iyagoo ku jira dil loogu geystay inay jireen marka aniga halka waxaan u arkaa in waxa weeye ciidamada booliska Soomaaliyeed tababar fiican la siiyo sidoo kalena shakhsiga dhibka geysta waajibka ama sharciga uu leeyahay la mariyo ee aan sidaas looga harin halka sidaas oo arkaa runtiina waa arrin aad u xun niyad jabna ku ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed man aan wax loo dulqaadan karo maalin kasta wiil dhalinyaro oo soo shaqo tagay oo waxa weeye in waxa weeye si sharci darro loo dilo aad buu mahadsanyahay BBC السلام عليكم مقعيق وسلام عبد الله وجوغا مقالة عاصمة مقدشو غراهان دقمة دركين لي waxaan dhihi lahaa bajaajleyda maalin kasta lagu dilaya magaalada Muqdisho hadaan raayay ku cabiro wax ka dhacay magaalada iyo dibadbaxyadii maanta ka dhacay magaalada intuba runtii waa wax aad looga xumaado ciidanka dawladdu booliska iyo militariga intuba waxaan dareemayaa inaysan lahayn wixii laga rabay ciidan qaran shuruudihii ciidanka inaysan buuxin karin anigu kulli waxaan ku sababayo waa badan tahay laakiin ciidanku waa ciidan dawladda ay soo tababareen aadaabta xagga dhinaca aadaabta kama dhamaystirna sidaan isleeyahay marka loo fiiriyo hab dhaqameedkooda iyo sida isla markiiba ay qoriga kugu soo fiiqayaan markaad magaalada marayso aad baan ugu xumahay runtii dawladana waxaan leeyahay wax ka qabta wax dhacaya
shacabkii shalay iyagaa idin doortay. Assalaamu calaykum BBC Soomaali, magacayga waa Amina Ifraax Cabdi, waxaan joogaa Dhadhaab, Kenya. runtii aad baa naga xumay in maalin kasta la laayo wiilasha Soomaaliyeed ee inta wadankooda aaminay ka shaqaysanaya bajaajta isla markaana ku biilaya reerahooda. ciidamada waxaa looga baahan yahay inay daayaan laynta ay laynayaan wiilasha bajaajleyda ah. bajaajlo hadduu diido amarka waxaa jirta wadiiqooyin kale ee loo mari karo ee ma ahan in loogu jawaabo xabad. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa looga baahan yahay arrinta inay jawaab cad ka bixiso isla markaana ay sharciga hor keento askari kasta ee geysta dil noocan oo kaleeta ah. way dhacdooyin noocan oo kaleeta marar badan magaalada Muqdisho in lagu laayo wiilasha bajaajleyda, laakiin weli lama arag askari inta cadaalada la hor keenay xukun lagu fulinayo. waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya arrinta ma ahan arrin loo dulqaadan karo inay jawaab cad ka bixiso. mahadsanidin BBC. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da oo aragtidooda iyo weliba fikradahooda ka dhiibanayay dilkii 2 wiil oo bajaajlaya maanta loogu geystay magaalada Muqdisho. barnaamijka dunida iyo maanta ayaad dhageysanaysaan dhageystayaal, halkan nagala socotaana waa BBC. ka dhageysa BBC Soomaali mobilkaaga, raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. wararkan naga soo gaadhaya magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in la xidhay tagaasida ka howlgasha magaaladaasi, waxaana qabtay ciidamada ammaanka, waxaana la isugu geeyay xarunta booliska ee Mandera. arrintan ayaa timid kadib afduubkii shalay halkaas loogu geystay 2 dhakhaatiir oo u dhashay dalka Kuuba kana howlgeliyay Mandera. talaabadan waxaa ka cawday milkiilayaasha tagaasida. haddaba Maxamed Nuur oo ku magac dheer Gaas waa mid ka mid ah dadka ku shaqeysta tagaasida la xidhay. bashkas jug soo dhacay ayuuna u warramay. tagsiilanahay maanta shaqaan u soo baxnay oo suuqaan u soo baxnay inaan shaqaysanaan u soo baxnay shaqadii aan u soo baxnay goor adaa baraha 4 saac meelahaas markay tahay unba magaaladii askar lagu daadiyay wax la daayay malaha gawaaridii oo dhan waa la aruuriyay brobox la qabana la leeyahay ma naqaan anaga dawladdan waxay naga rabtaan garan laanahay ilaa waqtigan imisa gawaari oo tagsiilayaalka ay isticmaalanayaan la qabtay intaas la qabtay kuma dhigi karo laakiin hadda waqtigan hadda aan taaganahay mar dhawaan stationka ka imaaday indhayga waxay ku dhacayeen ilaa iyo 30-40 gaari waa la xareeyay gawaaridii kale waa la xararay waa nin kastaba gaarigiisa uu la xararo meel uu la galay marka ma naqaan anaga dawladdan siday naga damacsan tahay gawaarida waxa weeye ma taqaana tagaasidan aad arkayso waxaa wada dhalinyaro wada inta ugu badan boqolkiiba muxuu ahay 99 waxaa wada dhalinyaradii muxuu ahaa goolada dhameystay qaar lagu dhaqan celinaya jiro marka ma naqaan anaga sidii ay muxuu ahay dawladda naga damacsan tahay anaga waxa weeye ma taqaana canshuur waa bixinaa oo dad muxuu ahay Kenyana nahay sidii wax loo wadaba waa garan laanahay baska kasako gawaarida oo la xareey dadka gawaarida wartaasan miya la qabtay ay kana ma xabsiga la dhigay adiga markii hore gawaaridii iyo dadka waa la isla qabtay waa la isla xareeyay gadaal dambe hadda la soo daayay hadda 3 saac waxa lagu haystay muxuu ahay station oo dareebaleyntii maanta gawaarida kulli waa soo sii daayay waa la soo daayay laakiin laysanka laga reebtay gawaaridina meesha looga soo tagay kulli taa askarta waxay sabab ugu dhigeen inay gawaarida ay qabtaan qaasatan kuwii bro boxka ay shalay waxaad ogsoon tahay waxaa la afduubay 2 dhakhaatiir ka imaadeen waddanka Cuba gawaaridii marka lagu afduuban waxaa la sheegay inay broboxin taas sabab ma looga dhigi karaa inay booliska ay qabtaan gawaaridaas baska waxa way horta qof kastaba ma taqaana markay wax dhacaan nin kasta wuxuu ku raadsanaa sidii uu wax ku raadin lahaa oo ayuu ku raadsanayaa annaga waxaan nahay dad muxuu ahay oo caruurtooda u shaqaysanayo dad muxuu ahay waalid uu ka dambeeyo inta badan oo tagsiga magaalada joogto uma malaynayo muxuu ahay arrimahaas nin ku jiro inuu maanta jiro ma u malaynayo ayaga laakiin waxay nagu eedeynayaan gawaaridii la isticmaalay waxay ahayd brobox ay ahayd laakiin haddana muxuu ahay gaarigii la isticmaalay ninkii lahaa in la soo qabto oo la keena nagu fiicnaan lahayd idinka ma tihiin dad ku shaqaysanaya markaa sida uu sharciga u farayo sharciga Kenya shuruucda u dhigan wanaga waafaqsanayo waxaan muxuu ahay ka waycanay malaha miyaasin dad u diiwaan galsan dawladda maxaanan ugu diiwaan galsanayn waxaan leenahay certificate of good conduct waxaan leenahay driving license kibandaan leenahay PIN number leenahay maxaa ahay dawladda seenan ugu diiwaan galsanayn dad muxuu ahay Kenyan oo wadanka ku shaqaysanaya nahay adiga markasta oo dhib dhacdo muxuu ahay anaga in muxuu ahay target aan noqono waxay ku dhacdaan garan laanahay teeda kalena muxuu ahay magaalada madax muxuu ahay noo hadlaysa inaan qadinayba ila tahay tagaasileedii oo dhan waa kana waa ila joogaan badidooda
waan iska fafadhinaa meelaan fafadhinaa maxaa lacag intay ka imaanayso baxashii tugtugta la dhahay unbaa shaqaynaysa marka ma aqaana midabta koorkan meeshuu ka imaaday oo tugtugtana waa taxi annagana taxi aan wadanaa waxa naloo midabta koray oo tugtug loo daaya waan garan laanahayba maanta annaga tugtug waxaa kala jeedaa bajaajka markaa lama qabanay ayaka bajaaj hadda way shaqaynaysaa ma aqaan annaga waxa annagoo keliya taageedka naloo saaray maxaa subinaysin marka maadaama gawaarida linka xareeyey maxaa idin mudan marka inaad subisin wallahi waa un muxuu ahay fariisanaynaa waa un ka tashanaynaa wixii aan ku dhaqaaqi doono waa un waxa annaga hadda noo qorshaysan ma laha laakiin waa un muxuu ahay annaga waa isu imaanaynaa guddiyaan leenahay wixii aan sida aan kula macaamili lahayn iyo waxaan samayn lahayn un baan hadda aan ka tashan doonaa kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur oo ku magac dheer gaas kana mid ahaa dadka ku shaqaysta tagaasida maanta la xidhxidhay dhanka kale haddaba bal si aan u ogaano saamaynta ay ku yeelatay dadka dadweynaha ku nool magaalada Mandheera waa kuwan iyagoo codadkooda bal iyaguna ka warramaya halka xaal marayo bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa asl ismaaciil cali anoo ka hadlaya maanta dhibka taksiilayaasha oo magaalada aan ka adeeganayno maanta nagu haysta ee taksi la'aanta ah waayo annaga meelo badan meelo dheer baan kala degannahay qorraxdana waa kuleel waxaan ku adeeganaa taksiyaasha xilli kuleel aan ku jirnaa annagoo wax socon kara ma laha marka waxaan ku adeeganaa taksiyaasha meel walba oo aan tagna maanta hataa waxaan meeshan ku qabnay xalfadaan ku qabnay annaga oo gruupka Mandheera is milk sellers dad badan ayuu naga maqan oo gruupka kamid ah oo gaari la'aaligiis imaadi waayeen taksi la'aanta wixii ay soo raacaan ay waayeen inta taksi annaga nambarada aan ka haynana cabsi guriga ay ugu noqdeen oo wax shaqeyn ah oo maanta jirin taas la'aaligeed marka wallahi dhib weyn ayaa nagu qabta maanta magaalada Mandheera taksiyaasha waxaa dadka ayagana lacag bay helaan laakiin annagana faa'iidaan ku qabnaa waayo waan ku adeeganaa meel walbaan ku tagnaa gabar baa xalay ii dhashay taksi la'aan waqti dambaan soo baxsaday intaan gaari waayaan tugtug soo saaray marka waxaa waaye taksi la'aanta dhib weyn ayay nagu haysaa marka dawladda waxaan ka codsanaynaa annaga taksiyaashaasayta way noo adeegaan waan ku adeeganaa xilli kuleelaan ku jirnaa dawladda waxaan ka codsanaynaa taksiyaasha inay noo fasaxaan waayo midkii oo dhibka wato soo galaad aragtiin waxaan rabnaa dawlad inay heegan ahaato ciidan baan ciidan baan ugu filan baan haysanaa hub baan haysanaa wax walba waxaan haysanin ma laha inay heegan noqdaan oo indhaha furaan oo dadkii ay maaragtay wixii waxun sameeyna ay hor istaagaan laakiin in wixii aan ku adeeganayno oo qorraxdan xilli kuleel aan ku jirno marka inay naga hor istaagaan ma rabna saas ayaan dawladana ka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi magacayga waa Ismaan Cali marka niyahow saameyn aad u baan bay nagu yeelatay sababtoo magaalo degan oo nabdoon oo baabuurta meel walba laga helay iskeejada ay taagan yihiin qof kasta oo macnaha gaadiidka dadweynaha u baahdo si fudud ku helo yaa marka hore yaan ku joogna magaalada marka wallahi arrin aad u baan bay nagu yeelatay oo maxaa yeelay waad garanaysaa magaalada aad bay u baaxad weyn tahay Mandheera dhulka ku fadhida ma yaro dadka dhulkana waa dhul oo aad qorax kuleyl u ah marka dadka shacabka inta badan waxa weeye yani arrintaas ida aad bay noo saameysay waana ku dhibanahay marka waxa weeye yani wallahi wax hadda maxay idinku yeelatay dad la weydiiyay ma aha qof kasta oo magaaladan ku nool waa dareemi karaa macnaha dhibaatada baan ay ku leedahay arrintaas macnaha waliba oo xilli abaaraad oo aad u kulul lagu jiro marka dhibaato baan bay meesha nagu yeelatay waxa hadda isweydiin lama aha taas iyada waa wax banaanka aan wallahi dawladda waxaan u diri lahay maadaama wadanka dawlad leenahay oo hadda anaga aan dawlad ku tiirsanahay oo wadan hadda fawda aan ahayn oo wadankayna uu xaduud leeyahay ciidan hadda sidaan aaminsanahay inuu ku filan u joogo magaalada Mandheera marka waxaan dawladda ugu baaqi lahayn dawladda inay indhaha kala furto ciidamada amniga ay dadka dhibaatada nagu hayo waa inay difaacaan oo xuduudada macnaha adkeeyaan ammaanka magaalada si ay dadweynaha si xurnimo habeen imaanan ugu noolaadaan sababta waxa weeye arrintaas iyada marka waxaan codsan lahayn maadaama ciidamada qaybahooda kala duwan ay magaalada ku sugan yihiin ciidamada sirdoonka inay aad u ilaaliyaan macnaha waxa wadanka soo galaya iyo waxa amni darrada ka wado inay wadanka ilaaliyaan oo ammaanka wadanka la ilaaliyo nabadgelyo ku noolaana oon dareeno inaan dad xur oo dawlad lahay oo nabadgelyo ku nool inaan ahaanaan dareeno intaas baan dawladda ka codsan lahayn haddii ay baaqayna ay u dhaga furnaato inay naga dhageysatana waan rajaynaynaa insha Allah abdiya maxamed xasan ayaa la yidhahaa waxaana ay reer Mandheera maanta shaqweyn weyn ay nagu yeelatay magaalada Mandheera shalay dad lagu dhameeyay maxay ahayd taksi la'aan maanta heen markaan ay nin walba lugtii ku socda ilaa busle ilaa shafshada aan isugu imaadi haynaa markaan nin walba lugtii ku socday kuleelkaad u jeediin dhib weyn maanta saameyn weyn ay nagu yeelatay dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo deeyaan aan rabnaa annaga taksiyaashayni kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka reer Mandheera oo ka warramayay sida ay u saameysay tagaasida maanta la xidhay
haatana dhankaas iyo Masar ayaan aadaynaa qabanqaabiyaasha koobka qaramada Afrika 2019 oo lagu qaban doono dalkaas Masar ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin inay wax walba tartankaasi loo diyaariyay walow bishii Janaayo ay ogaadeen in tartankaasi ay qaban doonaan dalka Masar ayaa muujiyay inuu danaynayo inuu tartankaasi martigeliyo kadib markii Cameroon laga xayuubiyay xuquuqda martigelinta taasi oo lagu sheegay diyaar garow la'aanta iyo waliba dhibaatooyin dhanka ammaanka ah hase yeeshee Masar laftigeeda waxaa ka jira arrimo dhanka ammaanka la xiriira waatan Samiir Cabdilaahi oo soo jeedisa qodobkaasi in badan ayaa waxa ay su'aal ka taagnayd oo ku aadan in Cameroon ay helayso xilliga saxda ah ee martigelinta ciyaaraha adduunka balse go'aanka ah in laga saaro martigelinta ayaa timid dhamaadkii bisha November kadibna waxaa soo baxday tartan ah in la doorto cidda lagu bedeli lahaa sidaas darteed Masar waxay si rasmi ah u ogaatay in ay tartanka ciyaaraha martigelinayso bartamaha June waxayna ciyaaruhu bilaabanayaan 21 June magacayga waa Maxamed Fadli waxaan ahay agaasimaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha koobka Afrika ee 2019 diyaarinaya howlo badan ayaan qabanaynaa weli warbaahinta kalama aanan hadal balse wax badan ayaa noo qabsoomay maalin walba 24 saac iyo 7 maalmood ee isbuucaba waa shaqeynaa wax kasta oo aan qaban karna waan qabanaa marka waxaan ballan qaadayaa ciyaaraha koobka Afrika ee ay sanadkan Masar martigelinayso inay noqon doonaan kuwa cajiib ah abidna ugu wanaagsana oo la qabto insha Allah hase yeeshee magaalada taariikhiga ah ee Bayramid waxay u badan tahay in aysan u baahnayn wax shaqo ah laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo loo baahan yahay in wax laga qabto gaar ahaan garoomada loo baahan yahay in ay martigeliyaan waxa ugu weyn ee ah ciyaaraha adduunka iyadoo 24 kooxood ay ka qayb galayaan markii ugu horeysay 6 goobood oo 3 ka mid ah ay kala yihiin magaalooyinka Qaahira Ismaaciiliya dhanka dekada iyo Alexandria ayaa lagu qaban doonaa ciyaaraha afhayeenka garoomada Shariif Saad ayaa inoo sheegay wixii ay qabteen waxyaabo badan ayaa lagu soo kordhiyay garoonka ciyaaraha sida biyo waraabinta kaamirooyinka oo gabi ahaanba la bedelay iyo shaashadaha waaweyn oo la dayactiray goobaha la fariisto ayaa sidoo kale la wada hagaajiyey waxaana ka mid ah qaybta saxaafadda loogu talagalay waxaa kale oo jiri doona hanaan cusub oo loo sameynayo soo gelitaanka taageerayaasha iyadoo albaabada lagu xiri doono qalab koronto ku shaqeeya wax badan ayaa la sameeyay xataa meel bannaan ah oo yar bal ka waran dadaalka looga baahan yahay garoonka kubadda cagta ee Qaahira 70,000 oo lagu daray arena kaas oo u muuqda tallaabooyin sanado loo baahnaa in la qaado garoonka kubadda cagta ee Qaahiro muddo lama adeegsan sababo la xiriira xayiraado adag oo dhanka kubadda cagta ah ee dalkaasi gudihiisa lagu soo rogay sanadihii ugu dambeeyay taageerayaasha kubadda cagta ayaa laga mamnuucay in ay daawadaan ciyaaraha taniyo dhacdadii sanadii 2012 taas oo ay ku dhinteen 70 qof kulankii dhex maray labada koox ee isku magaalada ka soo jeeda ahna kooxaha aadka loo taageero oo kala ah Al Ahlayn iyo Zamalek ayaa kulankaasi waxaa daawaday oo kaliya 30 qof oo min 15 ay ka soo kala jeedaan kooxaha dabcan arrintu ma ahan wax la xiriira ammaanka oo kaliya waxaa jiray tiro weeraro ah oo dhawaan ka dhacay Masar qof kasta oo ka qayb galaya qabanqaabinta koobka qaramada ayaa ka walwalsan in ammaanka uu yahay mudnaanta ugu sarreysa qorshaha amniga weli si rasmi ah looma shaacin sidaas darteed waa inay diyaar garoobaan madaxda guddiga qabanqaabada koobka qaramada xubin ka socota dalka Nigeria oo ka mid ah guddigaasi oo lagu magacaabo Amuja Pinnick ayaa booqday garoomada tartanka koobka qaramada Afrika loo diyaariyay wuxuuna ii sheegay in 100% uu ku qanacsan yahay sida ay wax u socdaan tijaabada ugu horeysa ayaa lagu qaban doonaa magaalada taariikhiga ah ee Bayramid aadayu mahadsan tahay Samiir Cabdilaahi jaamaca warbixintaasi nala socodsiinaysay dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa BBC waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijka dunida iyo maanta saacadda Afrikada barina waa 5:29 daqiiqo ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477 86 2 eber 9
kadhiiba waxa ay kula tahay BBC Soomaali. haddaba qodobadii wararka ugu waaweynaa aan ka codsado horiye xasan sheekh maxamed. madaxii sirdoonka qaranka dalka Suudaan Saalax Cabdallah ayaa iscasilay sida lagu sheegay war laga sii daayay warbaahinta dawladda. General Cabdallah Fataax al-Burhaan ayaa aqbalay iscasilaada General Cabdallah oo loo yaqaano Saalax Goosh. ururada ka soo horjeeda dawladda dalka Suudaan ayaa iyaguna ku baaqaya in dadweynuhu ay isugu soo baxaan banaanka hore ee xarunta ciidamada oo ku taala bartamaha magaalada Khartoum. tiro badan oo dad ayaa halkaasi hore u sii joogay waxaana ururada aqoon-yahanada ee dalkaasi ay sheegayaan in dibadbaxyadu ay ka sii socon doonaan guud ahaan dalka ilaa inta ciidamada militarigu ay awoodda gacanta u gelinayaan dadka shacabka ah. General Cabdifataax ayaa la dhaariyay xilli kadib markii uu hogaamiyihii hore ama General Awad ibn Coof uu xilka ka degay isla markaana oo hore xilkaasi uga afgambiyay hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi Umar Hassan al-Bashir. madaxweyne Trump ayaa sheegay in wali uu doonayo in shir saddexaad uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Mr. Kim ayaa hore u sheegay in ay suurtagal tahay in shir uu dhaco oo kaliya haddii Mareykanku aanu ka adkaysan dalabka ah in meesha laga saaro barnaamijka nuclear-ka ka hor inta aan laga qaadin cunaqabataynta. baarlamaanka Yemen waxa ay yeelanayaan kulankii ugu horeeyay muddo 4 sano ah. kulankan ayaa la qabanayaa xilli xaaladda amnigu ay murugsan tahay isla markaana dalka ay ka jiraan isku dhacyo u dhaxeeya dhinacyada isdiidan. mas'uuliyiinta Malta ayaa sheegaya in midowga Yurub ay isku raaceen in la qaabilo muhaajiriin markab laga leeyahay dalka Jarmalka uu ka soo badbaadiyay xeebaha Liibiya. dawladda Malta waxa ay sheegaysaa in la geyn doono dadkaasi Malta laakiin aysan halkaasi sii joogi doonin. Hindiyana waxa ay xusaysaa sanad guuradii 100aad oo ka soo wareegatay markii 100 qof ay dileen ciidamo Britain ah. xilligaasi waxa uu ahaa waqtiga ugu xumaa ee soo mara dalkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi ay xushmaynayaan isla markaana ay xusayaan xilligaani. warbaahinta dalka Suuriya ayaa ina sheegaysa in Israa'iil ay weerar ku qaaday xarun military oo ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Maysaf. warkan ka soo baxay warbaahinta dalkaasi Suuriya ee ku aadan in weerar lagu qaaday halkaasi Israa'iil wali kama aysan hadlin. magaalo lagu magacaabo Keker Beldon oo kamid ah magaalooyinka yaryar ee dalka Jarmalka ayaa laga soo doortay xildhibaankii ugu da'da weynaa caalamka oo lagu soo doortay doorasho golayaasha hoose oo halkaasi ka dhacday. haweeneyda xildhibaannimada loo doortay oo 100 sano jir ah waxay xilliga ololaheeda waday ay si weyn ugu ololeynaysay haddii la doorto in magaaladaasi ay horumar weyn gaarsiin doonto. mahadsan yahay xasan sheekh cumar ee dhageystayaal weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dunida iyo maanta waxyaalaha inoo soo socda aan idinku haynana waxaa ka mid ah adigoo carso xataa dad ifan aad timaado meesha adigoo qosleed ka mirta waayo saad u qoslaysid waxaan kuuriyey dee waa magaalada Hargeysa oo ay ku soo badanayaan caweysyada qaaciga lagu tuntaa ase way noo soo socotaa aynu ku horeyno dhanka iyo Suudaan. madaxa golaha militariga ee Suudaan ayaa xilka baneeyay maalin kadib markii uu hogaamiyay afgambi xilka lagaga tuuray madaxweynaha muddada dheer dalkaasi maamulayay waa Umar Hassan al-Bashir. wasiirka gaashaandhigga Awad ibn Coof ayaa go'aankiisa wuxuu kaga dhawaaqay telefishinka qaranka waxa uu xilka ku wareejiyay Cabdifataax Burhaan oo ah hogaamiye kale oo militariga ayaa wuxuu ku adkaystay inuusan doonayn inuu awoodda la wareego. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay ku hayay oo stuudiyo hadda inagula soo biiray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Cabdiraxmaan bal inoo waran halkee wax marayaan? dimbilow waxa weeye wararka hadda aan soo gaaraya waxay qorayaan in hogaamiyaasha mudaharaadyada ka socda magaalada Khartoum ay mudaharaadyashu ka codsadeen in 2 maalmood oo kale ay ku sii sugnaadaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Khartoum. talaabada cusub ee mudaharaadyashu ku dhawaaqeen ayaa imanaysa 2 maalmood kadib markii ay ciidamada Suudaan ay xilka kala wareegeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Umar Hassan al-Bashir. waxayna mudaharaadyashu dalbanayaan in si degdeg ah dawlad rayid oo ku meel gaar ah loo dhiso oo ay ciidamada xilka wareejiyaan. madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Hassan al-Bashir waa laga tuuray xilka laakiin dadkii mudaharaaday ayaa weliba diidanaa in markaasi al-Bashir iyo dawladdiisu ay sii jiraan ayaa weli saluugsan oo aan ku qanacsanayn sida ay isbedeladu markaa u socdaan. waxayna markaas weydiinayaan mudaharaadyashu ma ciidan isbedelay unbaa noo yimid mise dawlad rayid ayaa halkaa ka dhismi doonta. dadka ayaa weli markaas saluugsan talaabada militariga Suudaan ilaa hadda markaas qaadayaan laga soo bilaabo Khamiistii. isbedelo dhowr ayaana ka dhacay
generaalkii sababtu ahaa in uu cumar xasan albashiir oo xilka uu ka tago ayaa iscasilay 2 maalmood kadib isagoo aan sheegin sababta uu iscasilay marka wasiir gaashaandhigga madaxweyne ku-xigeenka Cawd bin Cawf ayuu ahaa ninka xilka la wareegay wuxuuna markiiba ku dhawaaqay in maamulkiisu ay la wareegayaan militariga oo muddo 2 sano ah gacanta ku hayn doono laakiin taasi ayaa loo arkay arrin wax ka duwanayn xukuumadda albashiir iyo waliba dadka qaar ama idaacadaha gaar ay yiraahdeen in albashiir iyo janankan yimid ay yihiin qorshe la isku og yahay oo isbedel weyn oo yimid oo aan oran karin haddaba generaal Cawd waa uu iscasilay 2 maalmood kadib waxaana isbedelay markaa madaxii waxaana bedelay halkaasi generaal kale oo isla dowladdiisa markaa ka tirsan oo la yiraahdo generaal Saalax Goosh isla saacado kadib ayuu haddana xilkii iska casilay iscasilaadda generaal Saalaxna waxay timid saacadun kadib markii uu sargaal ciidamada xilka Suudaan la wareegay hogaaminayay oo ahaa wasiirka gaashaandhigga Cawd uu xilka iska casilay balse sababta iscasilaadii haddana lama sheegin marka Cabdiraxmaanow sidoo kale warbaahinta dalkaasi gaar ahaan shabakadaha waafka dheer ee gaarka loo leeyahay dhinaca wararka sida shabakada 365 ama 365 loo yaqaano waxay maanta shaacisay waliba goor dhaweed intaan stuudiyaha aan soo gelin wax yar ka hor in ay axadda berri ah ay hogaamiyayaasha mucaaradka la kulmayaan saraakiisha ciidamada isbedelka hormuudka u ah waxayna markaa labada dhinac waa mucaaradka iyo militariga ee haatan dalkaasi ku meel gaara u hogaaminaya ay ka wada hadli doonaan siyaabaha markaas isbedel dhab ah oo waddan kaga iman karo waxayna sheegeen in ay kala hadli doonaan sidii dalka loogu soo dabaali lahaa isbedel la taaban karo ay ka mid tahay in la dhiso dowlad rayada oo weliba ku meel gaar ah muddo gaabanna xilka sii hayn doonto si dalka markaas loogu sii gogol xaadho dowlad rayad oo doorasho ku timaado oo shacabkana ay codkooda markaa ku dhiibtaan militarigu waxay ilaa hadda ay ku adkeysanayaan kuwa hore yimid kuwa hadda joogaba ee waddankaasi Suudaan ee xilka kala wareegay Cumar Xasan al-Bashiir in ay ujeedadooda ahayn in ay xilka awood militari ay kula wareegaan ama militariga uu dalkaasi sii hogaamiyo balse ujeedadoodu ay tahay rabitaanka shacabka mudaharaadaya ee shacabka Suudaan ay meel mariyaan haddaba hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Suudaan loo yaqaan Suudaan Congress Party Umar al-Digar wuxuu sheegay in ay ciidamada noqon kuwa awoodda dalka isku dhajiya sida dalka Suudaan looga yaqaano ugu yaraan ilaa 4 dowladood oo 4 mas'uuliyiin oo ka horeeyay Xasan al-Bashiir wax afgambiye ay waddan ku qabsanayeen ninka qabsadana muddo ayuu xilka iska haynay ilaa ama la afgambiyo ama siyaabo kale xilka kaga tago ururka ay leeyihiin sidoo kale aqoon-yahanada Suudaan ee SPA oo mudaharaadyadani qayb weyn ka ahaa ayaa ku baaqay in ciidamada ka shaqeeyaan sidii ay dalka u hirgelin lahayd dowlad rayid ah oo ku meel gaara afhayeen sidoo kale u hadashay midowga Afrika oo lagu magacaabo Eba Kalondo waxay sheegtay in la joogo xilligii ay dhinacyada Suudaan isku haya ay wada hadallo yeelan lahaayeen haddaba waxyaabaha kale la isweydiinaya Cabdiraxmaan waxa weeye al-Bashiir halku ku dambeyn doona waxay sheegeen saraakiisha haatan waddanka taladiisa haya xilka kala wareegay al-Bashiir in maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ah muddo hore ay u jartay waa la wada ogsoon yahay waaran ama soo qabasho iyadoo lagu eedeeyay in gaboodfallo oo dhinaca arrimaha bani'aadanimada iyo xuquuqda aadanaha uu ka geystay gobolka Darfur ee dalkaas Suudaan xilliyadii ay dagaalada ka socdeen maxkamaddu waxay ku amartay in la soo qabto hase ahaatee ciidamadu waxay sheegeen in ay marnaba u dhiibi doonin waddan shisheeye ama hay'ad shisheeye toona haddii loo baahdo oo madaxweynahaasi ama al-Bashiir uu leeyahay wax dambi ah in lagu qaadi doono oo dalka gudihiisa balse golaha ciidamada xilka la wareegay ayaa sheegay inaysan dhiibayn marna Mr. Bashiir oo dalka Suudaan ay ku haynayaan oo si nabadgelyo ah meel ammaan ahna lagu hayn doono wuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan oo ina siinayay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suudaan haddaba dhanka kale waxaan la xiriirnay Cabdicasiis Axmed Xaashi oo ka mid ah ardayda Suudaan ku sugan ee wax ka barata si aan wax uga ogaano halka imika xaaladii marayso Faadimo Taxaddar Yuusuf ayuu Cabdicasiis u warramay Faadimo waa xaaladda guud ee Suudaan maanta sidii shalay kale maaha dhammaan nolosha sidoo hore ayay waxa weeyaan u socotaa iyadoo ay jirto mudaharaadyadii iyo banaanbaxyadii ka soo horjeeday golaha militariga ee dalka inta gacanta ku haya kaasoo bilaabmay 4 bilood ka hor markii al-Bashiir uu 30 sano dalka isagoo maamulaya ay shacabku ka diideen qaabka wax wado dhaqaalo hoos u dhacay siyaasadnimo dalka lagu hagayo 30 sano sidoo kale shacabku arkay inaan haba yaraatay waxba isbedelin dowladdu ay wajiyadii inay marba waji cusub waxa weeyaan la soo baxayso oo shacabka bedelanayso si kastaba ha ahaatee maanta xaaladda guud ee Suudaan sidii shalay maaha intaasoo xalay hore la sameeyay dabaaldegyo aad u ballaaran markii uu iscasilay Cawd bin Cawf oo ahaa
taliska guud ama golaha sare ee meelgaadhka ee militariga ee iminka dalka ka taliya ninka madaxa ka ah kaasoo iscasilay kadib markii shacabku mudaharaadyadu sii wateen ilaa iminka waxaa socda mudaharaadyadii ka dhanka ahaa dowladda oo ay u arkaan militarigu inuu waxa weeyaan haba yaraatee wax isbedela aanu wadin ilaa dowladda loo dhiibaya cid rayda aanay haba yaraatee cidna aanay waxa weeyaan ku noqonin guryahoodii taliska militariga ama wasaaradda difaaca ee suudaan ayay dadku ku sugan yihiin iyagoo banaanbaxaya oo waxa weeyaan kor u qaadaya laafitaad ama halku dhibiyo ay kow ka tahay in xorriyad la helo cadaalad la helo nabadgelyo la helo marka muxuu yahay waxa ay isu casilayaan saraakiisha dalka gacanta ku haysa iscasilaada waa waxyaalo badan baa jira oo ilaa iminkaan caddayn golaha sare ee militariga ee dalka la wareegay ama golaha amniga ah kaasoo hore u jiray oo 15 qof ka koobnaa oo ilaa iminka aanay caddeyn cidda sida rasmiga ee dalada dalka gacanta ku haysa ninka la magacaabay horta waxaa la yidhahdaa cabdifataax alburhani waxa uu ahaa gudoomiyaha ciidamada sentariga ama ciidamada dhulka sidoo kale wuxuu kasoo shaqeeyey ciidamada yaman oo uu ahaa kormeere ka ahaa sidoo kale wuxuu udhexeeyey dowladda imaaraadka iyo intii ugu badneed noloshiisa waktigan dambe wuxuu ku noolaa imaaraadka iyo yeman isagoo laleeyahay wuxuu leeyahay ninka ciidamada gurmadka ee degdega ee suudaan madaxa ka ah oo la yidhahdo xamiid walaalay waxaa jirta oo iyadoo laftigeeda aan waxa weeye xusaya inuu iscasilay gudoomiyaha sirdoonka suudaan farax goosh oo aada loo tuhunsanaa laguna tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey faladembiyeeda aada u badan oo ka dhacay gudaha suudaan sidaan la soconno madaxweynihii xilliga dheer waddankaasi soo xukumayay cumar xasan albashiir xilkii waa laga tuuray banaanbaxyaduna weli waa sii socdaan marka maxaa loo sababeynayaa banaanbaxyadan weli sii socda faalmoy waa la horta waxaa dhacday xalay toole wax lama filaan ah iyadoo aan la filayn inuu iscasili doono ciwad ibnu cawf isagoo oo kamid ahaa raggii dalka maamulayay 30 sano ninkan iminka u dhigaysan sheegnay cabdifataax alburhani isaga lagaga kalsoon yahay haddaba walaalo waxaa jirta oo iyada laftigeeda isweydiinta mudan waxay tahay isbedelada iminka socda yaa dabada ka riixaya yaa wada halkee u socotaa rabitaanka shacabka ma la ajiibi doonaa wadahadal baa iminka waa la furmaya wadahadalkaas wuxuu udhexeeyaa tajamuc almahliyiin suudaaniyiin oo markaa ah ururka shaqaalaha ee suudaan oo markaa hormud u ahaa kacdoonkan socday 4 bilood ee 19 December bilaabmay ilaa iminka socda kaasoo ilaa iminka guulihiisi aan gaadhin guusha ugu weyn ee la doonaya la filanaya waxay tahay in la helo xukuumad rayid ah oo dimuqraadi ah in la galo doorasho xukuumadda kumeel gaadhka oo loo sameeyo oo waqtigeedu aanu ka badnayn waqtigii 6 bilood ku sugan 3 bilood siduu sheegay gudoomiyaha ama sarkaalka ugu sarreeya ciidamada gurmadka degdega ah xamiiti oo isagu mar walba u janjeera rabitaanka shacabka oo aada loo ammaanayo isagoo sameeyey guryaha la yidhahdo biyuutul ashbax ama guryaha bahalengalenka kuwaas oo waxa weeyaan walaal dad badan oo mucaaradka lagu ciqaabay haddaba qolyahan mudaharaadka hogaaminaya waa waxay ku celcelinayaan in la helo isbedel dhamaystiran militarigu aanu qayb ka ahayn xukuumad rayid ah ugu muhiimsan ee shacabka suudaan uu filanayana waa taas dowlada shisheeye iyo gacmo shisheeye inaanay meesha soo gelin baa iyadana laftigeeda meesha ku jirta oo shacabku uu ka cararaya qolyaha mucaaradka hormuud waxa u haasayna sheegnay qolyahan shaqaalaha suudaan tajamuc almahniyiin suudaaniyiin kaasoo iminka 6 qof uu magacaabay oo ka qayb geli doona oo hadallada dhex mari doona golaha sare ee militariga kumeel gaadhka ah iyo axsaabta mucaaradka cidda ugu badan ee iminka lagu kalsoon yahay wuxuu eegyahay tajamuc almahniyiinta 6 qof ee matari doona iyo waxa la isku waafaqi doona iyadana waxyaalaha saacadaha ku socda laga wardhowri doono ee la sugi doono insha allah Ilaahay ka dhigo haddaba uu mahadsan yahay cabdicasiis axmed xaashi oo u waramayay Faadumo Taxadir Yuusuf bal dhanka kale si aynu si weyn ugu eegno xaaladda Suudaan una falanqeyno waxaan la xiriirnay Dr. Axmed Sheikh Maxamed Tiir oo ka faallooda arrimaha caalamka islaamka wuxuuna marka hore weydiiyey wariye Cabdifataax Cagayare ma la filayay in golaha militarigu uu sidaa fudud isku casili doono arrinta waa la filayay markii ugu horreysay oo inqilaabka ka dhacay dadka shacabka raalli kama ay noqonin ibnu coof ninka la yidhaahdo oo ahay kolkii horeba madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka difaaca ee cumar albashiir marka dadka taa si fiican ugama daadegin dhammaan xoogagii waday banaanbaxyada waxay go-aan ku gaareen inay banaanbixi sii wadaan waxaa kaloo aada loo sii diiday waxa waaye ibnu coof ninka la yidhaahdo oo isagana ku eedeysan arrimihii ka dhacay
suudaan dilalkii ka dhaco maxkamadda aad ay u soo rogtay marka isaga iyo cumar albashiir wax badan isma dhaamaan ay dadka aaminsan yihiin arrintaas ayada waxay keentay marka shacabka inay diidaan ibn coof ay arkaan un wejigoo la bedelee nidaamka inuuna kicin iyo bayaankii ugu horreysay uu ibn coof sheegay in 2 sano ay waddanka sii hayn doonaan 2 sanona muddo aad u dheer waaye oo xukun military ah marka taabaa la diiday laakiin militarigii weli meesha toos ugumuusan bixin ama ciidamadaba meesha kamaanay bixin oo waxaa weli jooga jenaraal cabdulfataax burhaan marka soo weli jugjug meeshaada joog maaha dadka suudaan ma rabaan militariga inuu meesha idil ka baxo laakiin waxay rabaan militariga inuu ku soo haro xagga amniga waxba kama qabaan wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha gudaha amniga iyo waxa inay militariga hayo laakiin militariga inuu xukuumo madani ku wareejiyo arrimaha siyaasadda ay rabaan dadka suudaan muddada kala guurka ku meel gaarkana in aad loo yareeyo la galo waqti dhaqso ah doorashooyin dalka loo diyaariyo marka ninkan waxaa la sugayaa hadda bayaankiisii koobaad haddii uu ku dhawaaqo in militariga uu xerooyinkiisa ku noqonayo muddo dhow uuna waddanka ay gacanta ku qaban doonaan dad madaniyiin iyagana ay amniga guud ilaalin doonaan muddo yarna ay ku noqon doonaan xerooyinkooda shacabka ma diidi doono waxaad soo hadal qaaday in dadka ay doonayaan in doorasho ay dhacdo oo xukuumad madani ah xukunka lagu wareejiyo haddaba waxaa dib loo dhigay wadahadal dhex mari lahaa golaha militariga iyo axsaabta siyaasadeed ee dalka arrintaa soo walaac ma keeni karto isbedelka cusub oo yimid waxaan rajaynayaa cabdifataax alburhaan inuu arrintaas uu tii hore wax ka bedelo waayo hadduu u yeero axsaabta hadduu u yeero ragga tawriyiinta oo banaanka jooga hadduu u yeero waddanka ayaga inay ka taliyaan ugu yeero ma diidi doonaan waxaana filaa sababta loo bedelayna inay taas ugu weynto la doonayo weji cusub lama yaqaana aad cabdilfataax alburhaan in aad loo yaqaano ma aha marka dadka aad inay uga dadi doonin hadduu hadalkiisa siyaasiga uu si cad u caddaado dalka suudaan muddo dheer doorashooyin xor iyo xalaal ah kama aanay dhicin sida ay ku doodayaan axsaabta mucaaradka marka dadka dibadbaxayana waxay leeyihiin waa in doorasho la galaa oo lasoo doortaa dadkii dalkan hogaamin lahaa marka haddii aanu bal qiyaas samayno goormay suudaan u diyaar garoobi kartaa doorasho ballaaran ka dhacdo xora horta suudaan weligeed waa dad xorriyaad badan u iska jirayo weligeedoo way ka yara duwan tahay dowladaha carabeed inta kale suudaan inqilaab dhiig ku daato kuma badno suudaan waa dad nabadgelyada iyo siyaasadda aad u jecel marka xisaabteeda suudaan waa iska diyaar 2 xisbiyo waaweyn ayaa horaan jiri jirtay iyo xisbi saddexaad oo islaamiyiinta ay leeyihiin 3daas xisbi ayaa jiri jiray muddadan dambe dee xisbi fiican ma jirin waxaan filaa inay si dhaqso ah dadka suudaan isku nidaamin karaan oo muddo sanad aanan ka badnayn inay doorasho ku samayn karaan dhanka kale waxaa jiray dad badan oo sheegta inay dhibaato ka soo gaartay maamulkii madaxweynaha xilka laga qaaday cumar xasan albashiir marka dadka maxaa iyaga u furan jabhadooyin hubaysanaa jiro suudaan oo weli qori wato raba sidii suudaantan kale oo januubka inay go-aan ama ay doonayaan oo waddanka muddo dheer lagu dulmay daarfoor ah kamida iyo qaybo kale kuwaas hadda waxaa la sheegay in lala hadli doono oo dhibkii soo gaaray cadaalad xumadii soo gaartay fursadihii dadka ay u sinayn in hadda dib isugu noqdo cadaalo oo bulshadeed la sameeyo arrintaas waa arrimaha ugu waaweyn oo isbedelka suudaan haddaanan lagu samaynin waddanka midnimadiisa ay halis ku jirto marka waxaan filaa xoogaga cusub ee soo socdo inay arrintaas xoogga soo saari doonaan kaasi waxa uu ahaa axmed tiir oo u warramayey cabdifataax ibraahim cagayare haddaba waxaa qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay qaar ka mid a dhegaystayaasheeda facebook aan ku bilaabo khadar cabdi jaamac samatar waxa uu leeyahay xaaladda suudaan way cakiran tahay allow sahal waxaan sooga baaqayaa shacabka suudaan inay aada isu ilaaliyaan maxamed yaasiin ibraahim oo jooga magaalada baydhabo jannaay sida uu soo qoray wuxuu leeyahay waan soo dhoweynayaa iscasilaada cawd bin cawf tanina waxay imaanaysaa 2 maalin kadib markii madaxweyne albashiir xilka laga tuuray militariga dalkaasi iyo shacabkiisuba waa inay soo doortaan madaxweyne rayida ayuu dhageystahani qabaa mid kale wuxuu leeyahay magacaygu waa siciid cabdilaahi waxaan joogaa Canada waan ka xumay afgembiga Suudaan waxaan u malaynayaa
inay qaaday waddadii yeman iyo libiya qaaday wayna adag tahay in dalkaasi uu dib usoo kabto. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaashada Facebook oo xaaladda Suudaan aragtidooda ka dhiibanayay. dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa BBC, barnaamijkuna waa dunida iyo maanta. saacadda Afrikada barina waxa ay qadar 2 daqiiqo laadahay 5:50 daqiiqo. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. وحقاق هاتنا دنكاس iyo Somaliland muusigu waxa uu meel weyn kaga jiraa fanka Soomaalida waxaana loo adeegsadaa in lagu gudbiyo fariimaha waxtarka leh ee bulshada lagu hago. muddooyinkii u dambeeyay waxa Somaliland ka socday dadaalo dib loogu soo nooleynayo noocyada qaraamiga iyo qaaciga ahaa ee muusiga waxaana Hargeysa laga furay goobo badan oo lagu caweeyo oo muusigaasi lagu soo bandhigo. sidoo kalena waxa lagu dhiirigeliyaa in qofka codka isku tuhmaya uu hibadiisa soo bandhigo. waxay taasi ay dhalisay in dhalinyarada ay la dhacaan muusiga cuudka oo labtigooda inta ay isabaabulaan daafaha magaalada ay u damaashaad tagaan kuna tuntaan cuudka. waxa Hargeysa warbixintan ka soo diray Khadar Xaaji Cabdilaahi. waa xaflad qaaci lagu tumayo. kasoo qaybgalayaasha xafladdu waxay ku raaxaysanayaan dananka gitaarka iyo heesaha qaraamka. magaalada Hargeysa oo fanka caan ku ah ayaa waayadan dambe waxaa dib loo soo nooleeyaa tumashada qaacigii ay Soomaalidu caanka ku ahayd. goobaha caweysyada iyo meelaha laga cunteeyo ayaa habeenada fasaxyada iyo farxadaha aan inta badan qaacigu ka maqnaa. dhanka kale dhalinyarada magaalada ayaa intay kooxay isu kaxaystaan qaaci ku qabsada meelaha banaanada iyagoo intay dab shitaan ka dul heesa. haddaba Mustafa Cumar Idris Mustafa Galde oo ah kamaniiste ayaa waxaan weydiinay bal sida ay dadku soo dalbadaan. runtii wallahi horta markii hore waxaan u baranaynay kabankeena nafteeda ku raali gelino oo anagu isku madadaalino. laakiin muddada waxaan ogaanay in bulshadii ay nala jeclaadeen kabankii oo xiiseynayaan iyagana ay xiiso ku tahay. waqtiyada dalabku oo yimaadana gelin hore gelin dambe marmar baad adigoo dhalinyar iskala caweynaya iyo dhalinyar kale soo dalbanaysaa ay doonayaan inaad iyagana la caweyso. waxaana dee sidii hirgeliyey social media fara badan ee dhalinyartu ay gelayaan. caweysyada noocan ah ayaa waxaa weheliya isxujeyn iyo kaftan uu kolba qof heesayo. hadda waxaa agteeda taagan Nasrin Raabi oo kamid ah dhalinyarada xafladan ku sugan. haye Nasrin waa sida joogo. walaal baan faraxsanahay alxamdulillah. weekend-ka oo kale aad baa lagu raaxaysanaa. musiga markii hore qaaciga waxaan ku maqli jirnay sheeka ku maqli jirnay laakiin anaga oo tumaana heesaan ku dhibaynin daraskaad kaga raysanayso ma sha Allah. haye ka waran markaa ma heesta ma heeso laakiin isku daya marka qaar. magacaygu waa Cabdilaahi Cabdulle. jawigan horta aad arkaysaan caawa asxaabtii oo dhan baa wada joogta caawa waa la wada heesayaa kii codka xumaa kii codka wanaagsanaa waxa jira qaar fanaaniinta caadiga aad ugu soo cod wanaagsan adigoo cadhaysan xataa dad ifan aad timaado meesha adigoo qoslaysid kamarta waayo saad u qoslaysid waxaan ku huriyay dee waa wallahi waa nafisaad caadi weeyaan. inkasta oo ay kooban yihiin goobaha sportiska iyo maararowga waxa ay daayar badan madadaalo ka dhigtaan qaaciga halka ay qaar kalena shaqo abuur tahay maadaama uu dalabkiisu badan yahay. Khadar Xaaji Cabdilaahi BBC Hargeysa. waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay Khadar Xaaji Cabdilaahi. waxaan filayaa warbixintaasi intii inay dhageysanaysay inaad ka hesheen. haatanna dhanka iyo Kuuriya
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu sheegay inuu danaynayo inuu kulan saddexaad la yeesho madaxweyne Donald Trump hase yeeshee waa haddii Mareykanku uu la yimaado heshiis wanaagsan ayuu yidhi khudbada uu jeediyey golaha sare ee dalkaasi ay soo xigatay warbaahinta qaranku ayuu Mr. Kim ku sheegay inuu sugi doono ilaa dhammaadka sanadka in Washington ay ku bedesho habdhaqankeeda waxa uuna ka digay in hakad ku yimid wadahadallada ay sare u qaadeen halista in dib loogu laabto xiisadihii hore u jiri jiray haddaba wariyaha BBC da Laura Bika ayaa faahfaahinta warkan ka soo dirtay magaalada Seoul waa tan Firdowsa Maxamed Cilmi oo soo jeedinaysa madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay horaantii toddobaadkan inuu diyaar u yahay inuu la kulmo mar kale hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un labada hogaamiye ayaa kulmay laba jeer balse xilligaas waxay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis u ogolaanaya in Mareykanka uu ka qaado cunaqabataynaha Kuuriyada Waqooyi iyadoo taasna Kuuriyadu ay ku bedelanayso inay isaga harto barnaamijkeeda hubka nukleerka Kim Jong Un ayaa sheegay in xilligii wadahadallada ay ka socdeen Hanoi bishii Febraayo in Mareykanku uu la yimid qorshe gabi ahaan baanan jirin waxa uu sheegay in haddii Mareykanku ku sii taagnaado go'aankaasi ay tahay wadada ka horeysa mid khatar ah warbaahinta dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Mr. Kim uu amaanay xiriirka uu la leeyahay madaxweyne Trump balse digniin ayuu u diray waxa uuna sheegay in Mareykanka uu haysto ilaa dabayaaqada sanadka si uu u bedelo qaab fakarkiisa taasi waxay ahayd warbixintii ay Laura Bika ka soo dirtay Seoul ayna soo jeedinaysay Firdowsa Maxamed Cilmi وهجاج برامج كعاوي عالم كه نسوا قل شري سجال كافيدنمو وحان حسوسين إنه عاوة أنا يدكوا بدل برامج كعيارها أو عدي صندون طان برامج كاسي وحنا تبندونا أحمد عبد النور هاتنا برامج كعيارها إيوه إسلا أحمد عبد النور maanta waxaa dhacaya 6 ciyaarood oo mid ka mid ah ay dhamaatay galab dheer laguna kala baxay 4 kalena ay hadda socdaan midna ay dhici doonto caawa fiidnimada waqtiga Afrikada bari taas oo ah ciyaarta dhexmaraysa Manchester United iyo West Ham oo aan idin soo tabin doono bedelkii idaacadda caawa mar dhow ayaan muhiimadda ciyaartan ka hadli doonaa laakiin ciyaarta dhamaatay waxay dhexmartay kooxaha Tottenham iyo Huddersfield waxaana 4-0 ku badisay Tottenham oo sidaas ku soo gashay hadda kaalinta saddexaad ee kala horeynta kooxaha Huddersfield waa kooxda ugu hooseysa 20 kooxood ee tartanka horyaalka xilli ciyaareedkan ku loolamaya 14 dhibcood oo kaliya ay leeyihiin ilaa iyo hadda waxaana cadaana in sanadkan ay dhacayso labadii kooxood oo kale ee soo raaci lahaa ayaa laga hadlayaa waxaa kaloo jirta ciyaaraha dhinaca hore markaan fiirino ciyaaraha waxa ugu horeysa oo hogaanka haysa hadda kooxda Liverpool waxaa ku xigta Manchester City labadan kooxood midood ay u badan tahay inay qaado horyaalka xilli ciyaareedkan oo ilaa 4 toddobaad oo kaliya ay ka harsan tahayba marka Manchester City waa kooxda difaacanaysa horyaalka oo sanadkii hore qaaday Liverpoolna waxay leedahay ilaa ciyaarta ugu dambaysa sanadkan halgankeenu waa u soconayaa oo ma noqon doono mid horyaalku sanadkan si fudud loo qaato marka muhiimadaas ay leeyihiin ciyaaraha Ingiriisku kooxaha kale marka hadda ciyaartoodu ay socoto waxaa kamid ah Brighton iyo Bournemouth waxaa kaloo ishaya Burnley iyo Cardiff Fulham iyo Everton kooxahan oo dhan marka muhiimad ay u leeyihiin ciyaarahani maanta aad iyo aad u weyn sida Cardiff oo kale oo inay dhacdo ka cararaysa fursadda ay haysataana ay aad u yar tahay laakiin maanta hadday badiso laga yaabo in xaaladeeda wax iska bedelaan ciyaarta marka caawa aan socodsiin doono haddii aan u soo noqdo Manchester United iyo West Ham waxay noqonaysaa Manchester United haddii ciyaarta caawa ay ku guuleysato waxay soo galaysaa kaalinta 5aad oo hadda ay fadhido kooxda Arsenal marka aad iyo aad ay ugu baahan tahay guusha caawa West Ham gudheedu tartanka meel fiican ay uga jirtaa marka ma doonayso inay halkaas hoos uga sii dhacdo waa ciyaar marka sidaas muhiimad u leh kaalimahaas markaan fiirino kala horeynta Liverpool iyo Manchester City Tottenham Chelsea ayaa afaraad hadda ku jirta marka
kooxiba waxay doonaysaa in kooxda ka sarreysa ay ka daba tagto ama meesha ka saartaba aad iyo aad ayaa marka kulanka ka dambeeya uu uga xiiso badan yahay ugana qiimo badan yahay koox walba waa ciyaaro marka gabagabadii ku dhow koox walba numberkii ay qaadan lahayd sanadkan ayay markaasi ku dadaalaysaa saas darteed waa inoo caawa iyo ciyaarta xiisaha badan Manchester United iyo West Ham aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdinuur oo nala socodsiinaya barnaamijkii ciyaaraha dhegaystayaal intaa waxaa inoogu eg barnaamijkeenii dunida iyo maanta oo ay soo saartay Kawsar Maxamed Cabdilaahi una inoo farsameeyey Mubaarak Cabdalla si wada jirana ay idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiila iyo Faadmo Taxadar Yuusuf dhegaystayaal intaaynu dib u kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa maalintu ha idin samaato